bishii tobnaad 2018 Djibouti waxaan ka bilownay olole ee la yiraahdo geed beer jabeer dhulkaaga beer wadankaaga cagaar ka dhig wuxuuna ilaahay ma aragtay noogu sameeyay sanadkan September 2019 inaanu geedii ugu horeeyay beernay imika waxaan beernay 200 geed muhiimadda ka dambeysana waxa weeyaan in bulshada ma aragtay lagu dhiirigeliyo sidii ma aragtay ay u beeran lahaayeen wadankooda u ogaan lahaayeen nabad guurkana looga badbaadi lahaa waa October 2018 bay ahayd sanad horteed bay ahayd marka anigu muhiimad waxay wadankeena doctor dhul ma aragtay biyo ku yar yihiin kulayla abaara ayaan ku dadaalay in ma aragtay aan ka baabino oo beerno oo qurxino marka aniga waxa igu weynaa deegaanka Djibouti oo dhulku abaar yahay sidaan cagaar uga dhigi lahaa anigoo ma aragtay caawinayana dadkii reer Djibouti wallahi waxaan aaminsanahay walaalo geedka la goynayo oo aduunba dhibaato isku keenay saad ogtahay cimilada ma aragtay isbedelku dadweynaha dhan buu taabsaday maanta waqtigan roobku daayo waadiga og taa waxa ka sii daran kulaylka oo sii badanaya sanadba ka sanad marka aan walaalo waxaan leeyahay haddaan reer Djibouti nahay geedahan dhowrno geedan beerno aan ku dadaalo si cimiladeena aanu hagaajin lahayn taasna kulliba wahamiyad macal dawladda saaran dawladuna ajandaheegu way ku jirtaa laakiin anagu waxaan buuxinaynaa dhinacii bulshada rayidka oo ah dadka reer Djibouti 200 baan beernay iyo 930 200 waxaan beernay 119 geed mireeda iyo intii hadhan waxaan beernay geed hadheed marka walaal waan bilownay waan ku soconaa insha Allah imika adu objectivekeega waxa weeyaan 15 geed waxaan rajaynaynaa inaan gaadhno ayaan dhow hadii Ilaahay dhaho walaal waxaan ku dheerigelin lahaa dhulku markuu qaboobaado inay beeraan geedahana geed hadheedka ay beeraan sida miramirida sida geedihii aan naqaanay looriye aan noqoto geedaha adu de dhulkana wuxuu qabanaya inagana wuxuu noo soo kordhinaya waxana leeyahay keligii hadaan oo macal dad anoo taageersanay hadaan 239 aan beeray inaguna intay ka badan baa beeri kartiin marka yimika dhinacoogi baa la sugayaa hawshan ma kaliga ayaa wada mise dad kale oo kula wada barnaamijkan ayaa jira wallahi bilowgii keligii bay ahayd imikana waxaanu nahay 111 qof waanu ka sii badanaynaa waxaan ugu daray inta qof ee taageerayaasheeda ayaan dhow video aan duubay 30,000 oo qof ayaa ka soo jawaabay oo reer Djibouti waxaan u maleeyaa dadkii waxay u baahnayeen qof dhiirigeliya marka wallahi qof walba raba inuu geed beero laakiin muhiimaddu waxa geedka xagaa laga helaya xagaa lagu beeraya geedku muu iga dhiman marka dadka maanta mid baan ugu sheegayaa wixii intaana tijaabin kama cabsoon kartid tijaabiya marka baad cabsoon doontiin